Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear students. So this is a new lesson. So today is a reading lesson. Reading. Every weekend is important to the Garcia family. Every weekend is important to the Garcia family. Weekend waa labada maalmood oo fasaxa marka wadamada badankooda 5 maalmood ayaa la shaqeeyaa, 2 maalin oo fasax. Wadamada qaar sabti axad ayaa la nastaa. wadamada qaarna waxaa la nastaa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. wadamada islaamka oo kale khamiista iyo jimcaha labada maalin waa fasax. marka maalmaha fasaxa labada maalin fasax waxaa la yiraahdaa weekend. Every weekend, marka weekend kasta is important waa muhiim. Muhiim ah. Every weekend is important. Weekend walba ama fasax walba waa important, waa muhiim to the Garcia family. qoyska reer Garcia. marka ninkii baa lagu magac daray, ninka Garcia la yiraahdaa. marka qoyska ninka lagu magac daray waa reer Garcia. reer Garcia labada maalmood fasaxa aad ay muhiim uga tahay oo ka faa'iideystaan waa xilliga ay kulmayaan oo ay qoysku ama usradu isku imaanayso. Every weekend is important to the Garcia family. Every weekend is important to the Garcia family. ardayahay mid baa idin sheegaya cashirka markaad dhageysanaysaan cashirka film ha ka dhigan cashirka markaad dhageysato marar badan dhageyso deetana waxaad samaysaa isku dayna adoo akhriyi karto eray walba halka ku jira erayada kugu cusub meel ku qoro deetana akhrintooda ku celceli micnahoogana isku day inaad maxaan ku radaa inaad qaybto si erayga haduu mar labaad soo noqdo aanad maxaan ku radaa ugu dhibtoon. marka taas sameeyo hadii la yiraahdo cashirka ku celi adna akhri marka adoo akhriyo adna akhri cashir walba akhri erayada ku cusub meel ku qoro micnahooda tarkiis saar. haddana eray si fiican u micnayn comment ku soo qor waxaad tiraahdaa macallin erayga ma fahmin igu soo celi macallinka micnihiisa dadana ku micnaanaya hadii la yiraahdo. cashir walba dhageysatana erayada aad jeceshahay erayaad jeclaysatay isna soo qor macallin eraygasan ka helayda jumlad ka samee dadana. And with that, let's continue. Every weekend is important to the Garcia family. During erayga mar badan buu soo maray. During Arabiga wuxuu noqonayaa athnaa Arabi. Soomaali wuxuu noqonayaa inta lagu guda jiro way during. haddaan iraahdo during the week waa week inta lagu guda jiro. haddaan iraahdo during the evening waa fiidka inta lagu guda jiro. haddaan iraahdo during the morning waa inta lagu guda jiro aroortii ama subaxii lagu guda jiro weeye. During the week marka xagan sheekadan laba la kala saaraya week iyo weekend. week waa maalmaha la shaqeynayo sida wadamada ay ku kala duwan yihiinba. weekendna waa labada maalmood oo fasaxa. During the week gudihiisa they don't have very much time together. waqti badan isuma helaan oo sababtu waa ogaan doonaa. marka maadaama la wada shaqo shanta maalmood oo shaqada maadaama la wada shaqo tagayo iyagu usradu waqti iskuma helayaan oo isma helayaan. They don't have very much time together. But they spend waa waqti qaadasho weeye. spend waa waqti qaadasho waxaad ku qaadato waqtigaaga ba spend waqti qaadasho weeye. waxay kala noqotaa inaad lacag isticmaasho na way noqotaa. But they spend a lot of time together. laakiin waxay waqti badan ayay wada qaataan together waa iyagoo dhan. and together waa marka iyagoo dhan weeye. marka iyagoo dhan waqti bay wada qaataan cidna kama maqna weeye. But they spend a lot of time together. waqti badan ayay wada qaataan on the weekend labada maalmood fasaxa. See, this is the man and this is the woman, his wife, and these are the two children. This is their daughter and this is their son. Mr. Garcia works at the post office. Mr. Garcia mudane Garcia works at the post office. wuxuu ka shaqeeyaa postada ka shaqeeya. postada waxa weeye meel warqadaha waagi hore la isticmaali jiray badanaa warqadaha laga diri jiray. warqad buu qofka soo dirsanaya iyaga qaadaya warqadii way qaabilayaan warqadii meeshii socotay ay u dirayaan. qofka kalena magaalo walba post office ay lahayn jirtay hadda laakiin male. Mr. Garcia works at the post office ayuu ka shaqeeyaa. During the week gudihiisa inta post office ayuu ka shaqeeyaa. But he doesn't work there on the weekend. laakiin weekendka labada maalmood fasaxa halka kama shaqeeyo oo fasax weeyo
guriga iska joogaya arrimihiisu qabsanaya. Mrs. Garcia works at the bank. gabadha Mrs. Garcia works at the bank. waxay ka shaqeysaa bangiga ka shaqeysaa during the week. weega gudihiisa bangiga ayay ka shaqeysaa. waa ka bangiga lacagta ayay farsameynaysaa. But she doesn't work there on the weekend. laakiin maalmaha fasaxa halka kama shaqeyso. Jennifer and Jonathan oo ciyaalkooga Jennifer wata iyo Jonathan Garcia. Jennifer and Jonathan Garcia go to school. Schoolkay tagaan during the week. weega gudihiisa schoolka ayay tagaan. But they don't go to school on the weekend. laakiin schoolka ma tagaan weekendka ama laba maalmo fasaxa school ma tagaan. And the Garcia's dog, Ray Garcia eygooga Maxna stays home alone during the week. maalmaha weega shaqada guriga ayuu joogaa. stays waa nagaasho weeye ama qofka inuu meel ku nagaado ama joogitaan. stays home wuxuu ku nagaadaa ama joogaa guriga alone keligii. alone waa keligii during the week. weega inta dadka kale ay shaqo tagayaan ama iskuul ay tagayaan isagu guriga ayuu keligii joogaya. ku cidlooday malaha. But he doesn't stay home alone. laakiin guriga ma joogo guriga kuma nagaado alone keligii on the weekend maalmaha fasaxa oo qoyska dhan baa la jooga. okay, so this is the father, this is the mother, and these are the two children, and this is their dog. See this? They're working, they're watching TV. See this? What are they doing here? Maybe they're working in the garden, maybe they're having their dinner. They're playing musical instruments. So musical instruments, qalabka, musica they garaacayaan. On Saturday and Sunday, Saturday iyo Axada oo maalmaha fasaxa, the Garcias spend time together. waqti ayay wada qaataan. Spend time together waa waqti wada qaadasho. On Saturday morning, sabtida subaxii ama aroortii, they clean the house together. guriga ayay wada nadiifiyaan. On Saturday afternoon and maalin sabtida galabtii, they work in the garden together. waxay ka wada shaqeeyaan beertay ka wada shaqeeyaan ama xadiiqada. And on Saturday evening, maalin sabtida fiidnimadii sabtida fiidnimadeeda, they watch videos together. waxay wada daawadaan and video ayay wada daawadaan. On Sunday morning, maalinta Axada subaxii ama aroortii, they go to church together. kaniisada ay wada tagaan. On Sunday afternoon and maalinta Axada afternoon galabtii, they have a big dinner together. cuntay wada cuno. marka cuntada afternoonka ama galabtii la cuno ayaa la yidhahdaa dinner. marka afternoon waxa weeye waa waqtiga waa duhurka ama 12 buura ilaa 4 ilaa 5 laga gaaro ayaa la yidhahdaa afternoon. waa adu galab weeye galab. And on Sunday evening, maalinta Axada fiidnimadkii, they play their musical instruments together. waxay wada ciyaaraan music waa laga keenay waa musical instruments waa qalabka ama aaladaha muusigada ayay wada garaacaan ayay wada ciyaaraan together iyagoo wada jooga. So they're playing musical instruments together. And the dog is just listening. So on Sunday evening they play their musical instruments together. As you can see, sida aragto, every weekend is special to the Garcias. Weekend walba ama maalmaha fasaxa walba is special to the Garcias. waa maalmaha kale ka duwan to the Garcias, reer Garcia. It's their only time together as a family. waa waqtiga keliya ay wada joogaan oo waxay wada qabtaan weekii oo dhan as a family, qoys ahaan. marka qoyska way fiicantahay qoyska inuu mar isku yimaado weekii mar ama laba mar la isku yimaado sana wax la wada qabto is good for the family. So let me read once quickly. Every weekend is important to the Garcia family. During the week, they don't have very much time together, but they spend a lot of time together on the weekend. Mr. Garcia works at the post office during the week, but he doesn't work there on the weekend. Mrs. Garcia works at the bank during the week, but she doesn't work there on the weekend. Jennifer and Jonathan Garcia go to school during the week, but they don't go to school on the weekend. And the Garcia's dog, Max, stays home alone during the week, but he doesn't stay home alone on the weekend. On Saturday and Sunday, the Garcias spend time together. On Saturday morning, they clean the house together. On Saturday afternoon, they work in the garden together. And on Saturday evening, they watch videos together. On Sunday morning, they go to church together. On Sunday afternoon, they have a big dinner together. And on Sunday evening, they play their musical instruments together.
As you can see, every weekend is special to the Garcias. It's their only time together as a family. I end my lesson there. So in case you have got questions, please post the question in the comments. And with that, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bye bye.